taliyaha guutada toddobaad ee qaybta 6aad ciidanka xoogga dalka gaashaan la dhexe Axmed Cabdi Cali Axmed Gaashaan iyo saraakiisha guutada ayaa kormeer ay ugu kuurgalayeen habsami socodka iyo isku dabaridka howlaha ciidanka xoogga dalka ku tagay fariisimaha guutada toddobaad ee degmada Afgooye, Waraaboole, Tixsiile, Warmaxan iyo Sharey. waxaan halkaasi uu kula kulmay saraakiil iyo askar gudanaysa waajibaadkii loo idmaday, isagoona ku dhiirigeliyay inay iska dardargeliyaan sugidda amniga wadada dheer ee isku xirta degmooyinka Afgooye ilaa iyo Walaweyn. taliyaha ayaa intaasi kadib gaaray taliska guutada ee degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoona degmada ay u muuqatay inay ka soo kabanayso dagaaladii sukeeye ee ka dhacay. waxaana kulan looga hadlayay amniga guud ee degmada sidii xal waara loogu heli lahaa colaadaha soo noqnoqday, ka hortagga fatahaadaha webiga Shabeelle, iyo in hal meel lagu soo wada jeesto kooxaha argagixisada. wada qaatay taliyaha guutada toddobaad ee qaybta 6aad iyo gudoomiyaha degmada Walaweyn. kulanka kadib Maxamed Siidow, gudoomiyaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, oo ugu horreyn ka warbixiyay kulanka, ayaa dhinaca kale ku baaqay in wax laga qabto dhibaatada iyo saameynta fatahaadaha. kulleyta waxaan ka wada hadalnay sidii loo sugi lahaa waxa ugu horeeya ee Soomaaliya maanta ay u baahan tahay waa amni, in amnigii magaalada ka jiray iyo wixii oo horay u socday meeshii laga sii ambaqaado oo horay loo sii wado laga wada shaqeeyo sidii amniga si guud oo dadka ay u dareemi lahaayeen in magaalada laga hirgeliyo wixii magaalada dhib ku wadana sidii loo qaban lahaa, sidii looga wada shaqeyn lahaa horumarka degmada, sidii looga shaqeyn lahaa in shacabka macnaa xogaa waxaa jirtay degmada Walaweyn sida la wada ogyahay in xogaa dagaal qabaa'il uu ka jiray, inkastoo dagaalkii hadda uusan jirin oo bulshadii xogaa isdhexgal uu ka muuqdo ay isu soo dhawaanayaan, in wixii dhiman oo loo baahnaa in la dhammaystiro oo dhiman kaliya heshiis yar oo ay wada saxiixaan labada beelood kaliya ay dhiman tahay sidii loo dhammaystiri lahaa, wadadii loo mari lahaa, sidii looga wada shaqeyn lahaa ayaan ka wada hadalnay. Axmed macnaa waa nin la ogyahay oo ka soo shaqeeya degmada marka qof ka soo shaqeeyay Walaweyn waxay u noqonay galaas biyo la cabayo, sababtoo ah marka waa ka dhib badnaad dagaal ahli oo aad u dheeraada meesha ka jiray, ninkii soo xasiliyi waaye. marka inta yaroo Walaweyn macnaa ay u baahan tahay in macnaa ay u noqonayso mid arin sahlan, macnaa asagana waa dareemi karaa, annagana waa ognahay. marka inaan ka wada shaqeyno sidii wixii loo dhammaystiri lahaa iyo wixii oo dhanba waa ka wada hadalnay, waanu ku wada heshiinay. aad iyo aadaan ugu mahadsan tahay taliya, mar labaad ku soo dhawow degmada adiga ciidankaaga. waxaa kaloo jirta degmada Walaweyn sida mar horeba annaga aan sheegnay anoo macnaa kaga faa'iideysanayo maanta fursadda aan haysano in Walaweyn ay ka jirto fatahaadaas hore waa u sheegnay mar koowaad iyo mar labaad dowladda federaalka, dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo hay'adaha samafalkaba inta waa u wada gudbinay. anoo maanta fursaddan ka faa'iideysanayo waxaan leenahay biyahan fatahaada ah oo soo socda, kuwii hore kuwa kale haddana yimid, sida hadda la sheegayo kuwa kale haddana ay soo socdaan, sidii looga hortagi lahaa hadda waxay ku dhow yihiin wadada inay jaraan. marka waxaan codsanaynaa in fatahaadaas wax laga qabto, dadka biyaha soo barakiciyey oo aad iyo aad u dhibaataysan in gargaar degdeg ah lala soo gaarana. kulleyta taliyaha asaa ishiis ku soo arkaba ilaan wadada asaa hadda soo maray oo ku Cabdifataax Cabdiqaadir Akhyaar, idaacadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan degmada Walaweyn.